fariintan u diray madaxweynaha ama ra'iisul wasaaraha cusub waxay noqonaysaa in shaqadooda ugu badan ay saaraan in wadanka qof walba uu asaga shakhsiyad la u dooran karo. Soomaaliya qabyaaladda waxay u geystay dhibaatooyin badan oo ilaa hadda dhibaatada ku jirna ay kamid tahay in arday jaamacad ka qalin jabisay oo shaqo doon ah in qofkii shaqo siin lahaa ay tahay dawladda inaysan dawladda shaqo siinin oo calishan wasaaradda oo kale ninkii maamulka ka ahaa cidiisii kaliya intii ahayd oo kaliya inuu u shaqaaleysiiyo maadaama wadankii hadda uu isbedelayo insha Allah waxa jeclahay in isbedeli doono dhalinyarada waxyaabo badan loo sameeyo doono xildhibaanadii hadda soo baxayeen ee sanadkan u bateen inay noqdaan dhalinyaro gabdho da'yar wiilal da'yar ee soo baxay doorashada kadib waxa uu sheegi lahaa madaxweynaha ama ra'iisul wasaaraha imaanayo inay xoog saaraan in dhalinyarada runtii waxa ku dhacay dismoral ayaga niyadoodu way jabtay in dhalinyarada la wacyi geliyo oo niyadooda dib loo soo celiyo oo calishan tan hadda ururkan wadaan oo kale oo qabyaaladda laga wacyi geliyo